geelu waxa weeyaan noloshii koowaad ee Soomaalidu lahaan jirtay maanta adduunyadu dhaqaalaha kale haysataa oo daaraa la dhistay oo dawladaha la dhistay oo nolol kale la helay laakiin kol baan noloshu ahayd hasha oo hasha ruuxu ninkaa hashalay inuu isagu dhintay iyo hashu dhimata ayaa reerka isugu mid ahaa waxaad ku garanaysaa nin baa wuxuu yidhi intuu gabiyey waxba igama dhibo geel haddii laygu dhaawaca bukiciya caanuhu dee nolosha koowaad bay haayeenoo dhaarta ugu weyn ee uu ninku ku dhaartaa wuxuu odhan jiray wallaahi la nabad iyo caanaba waada odaygii ammaanayay geela ammaanayay markuu wuxuu ku sheegay garan waayo wuxuu yidhi il dheer ama jimba buu yidhi il dheer ama jimba adaga ama birba awrana ama sanga aadana ama nimba udgoona ama xashba awrana ama naba buu yidhi bal inta isugu keenaya kada Soomaalida hore geela maxay ku ahaayeen caanihiisana inteen nuuc ayuu ka kooban yahay dhaqankana Soomaalida geela dhankooda muxuu ka ahaa waa kan Muuse Cali oo ka hadlay caanaha geela iyo dadka Soomaaliyeed siday ku ahaayeen geelu waxa weeyaan noloshii koowaad ee Soomaalidu lahaan jirtay maanta adduunyadu dhaqaalaha kale haysataa oo daaraa la dhistay oo dawladaha la dhistay oo nolol kale la helay laakiin kol baan noloshu ahayd hasha oo hasha ruuxu ninkaa hashalay inuu isagu dhintay iyo hashu dhimata ayaa reerka isugu mid ahaa waayo waxaad ku garanaysaa nin baa wuxuu yidhi intuu gabiyey waxba igama dhibo geel haddii laygu dhaawaca buuri wax dhibaataday tahay haddii layga dhiciya haddii laygu dhaawaco waran laygeliyo geel waxba igama dhibo buuri waxse dhibaataday tahay haddii layga dhiciyaa buuri oo horta geelu noloshaasuha kow nolosha muxuu noloshaa u lahaa jiilaalkii isagaa ka saari jiray reerka dhulku barwaaqu markaa ahaan jirayoo maanta ninka 100 halaad leh baryaha qaarkood ninka 10 halaad leh baa ka faa'iido badnaa oo dhulkaa wada barwaaqa ahaan jiray oo 10 halaad ayaa ka faa'iido badnaa maanta 100 halaad jooga waa marka labaad caanuhu dee nolosha koowaad bay haayeenoo dhaarta ugu weyn ee uu ninku ku dhaartaa wuxuu odhan jiray wallaahi la nabad iyo caanaba waada dee nabadda waynu garanaynaa inaan nolol ka dambaynin caanaha ku xigay nabad iyo caanaba waana dadka waa lagu habaari jiray kolkaa caanaha geelu dee horta heerkaasi adeer taagnaayey waa marka kale caanaha geela ayaa maanta caano geel banu dhaqaanaa dhay iyo dhanaana maalin dhawaytaan dhegaysanayay nin caano geel ka sheekaynayo oo caanaha geelu 3 ka dhigay iyo 4 caanuhu waxay ahaan jireen geelu mar waa lis oo hashii halka taagan baa laga lisoo xoor bay leedahay mar waa dhiisin oo waa intoo hashii ka listay baa dhigto habeenkii bay qaboobeen mar waa waraaba qandhis oo labeen baa soo fuushay mar waa ka foofeen oo xoolihiisa geelisaaka marka la lisay la sii daayo barqanka caanaha la sii haruubka lagu dhigaa halkaa la dhigay marka aad martida u keento ama dadku cabaayo kuwa talaajada maanta la geliyay way ka qaboobaay kolkaa caanaha markay noocaas yihiin ee ka foofeenka iyo kuwa waraaba qandhis kale labeentu fuushay labadaasi waa kuwa dadka lagu dacar bixiyay ahay jiray mar waa carab diiris mar waa dhanaan mar waa dhanaan marna waa maydhanaan marna waa karuur marna waa galxood 12 nooc ayaa jira oo iyo 2 nooc oo kale ay yiraahdaan koonfurta looga yaqaano suusac iyo mayac 14
كان نوع بان horta magacyadooda waa qaana caanaha geel kolka caanihii geel waxa weeyaan waxay ahaayeen qaar cajaa'iba mar alla marka anigu aan xasuusan dhalaalka iga soo daadanaya marka wali anoo aan joogin anoo noolo ilaahay abuuray oo meel magaalo jooga miidaayo hadalkeed badaayo habeenka aan koobnaha caana geel waado waan doonaan ismariyo waaga kugu bari walla igata waligay waa habeen baasur habeenka aan koob caana geel cabbi kolka geel waa abuur gooriya oo ilaahay ugu talagalay ilaahay intuu quraanka kaga warramo waa aragtay dhaqanka Soomaalidana waa ka laf dhabarba gabigiisuba odaygii amaanay geela amaanay markuu wuxuu ku sheegay garwaay wuxuu yiri il dheera ma jimba buu il dheera ma jimba adaga ma birba awrana ma sanga adana ma nimba udgoona ma xashba awrana ma laba buu barinta isagu keenay kada yani uu ku wareeray waxa wuxuu ku qiyaaso kara